booliska dalka suudaan ayaa axaddii xabsiga u taxaabay dhowr qof oo ajnabi ah oo ay soomaali ku jirto kadib markii qarax ka dhacay dhismo ay dad rayid ah degganaayeen oo ku yaala magaalada khartuum. booliska ayaa sheegay inay dhismayaashan ka heleen waxyaabaha bamka laga sameeyey iyo baasaboorro ajnabi ah. kumanaan arday soomaaliyeed ah ayaa wax ka barta jaamacadaha ku yaala dalka suudaan. haddaba dhacdadaas iyo soomaalida la qabqabtay ayaa wariyaheena nuur xasan nuur uu ka waraystay cabaas maxamed nuur oo wariye ka tirsan ah telefishinka qaranka soomaaliya oo ku sugan magaalada khartuum. nuur bukhaari waa mahadsan tahay. sida aan xogta ku helay waxaa dhacday in guri ka mid a guryaha ku yaala magaalada khartuum ee xarunta dalka suudaan oo ay ku nool yihiin ajaanib isuguna jirta soomaali, suuriyaani, masaari intaba ay ka dhacay maalintii shalay ahayd ee xadda ahayd qaraxaasoo inta badan aanu wax saameyn geysan balse saameyntii ugu badneed gaarsiiyey qofkii sameynayay. waa garta marka qofka sameynayay qaraxaasi geystay wadanku u dhashay ma suudani buu ahaa mise ajnabi? sida aan xogta ku helayo ilaa iyo hadda ma aysan caddeyn dowladda suudaan jinsiyadda uu qofkaasi wato, balse waxaa lagu ogaaday inuu qofka uu ahaa islamarkaana uu noqday mid baxsaday kadib markii uu dhaawacii fududaa uu soo gaaray uu aaday dhanka isbitaalada si xaaladiisa caafimaad loo dabiibo. dhakhaatiirtii isbitaalka uu tagayna waxay ku wargeliyeen in uu ka soo qaato booliska caddeyn uuna warbixiyo dhacdada sida ay u qabsatay, kadibna uu kusoo warceliyey si xaaladiisa caafimaad loola tacaalo. waraaqadihii laga dalbaday dhanka ciidanka booliska ay u direen isbitaalkii maanu ku guuleysan oo bartii ayuu uga dhaqaaqay. ilaa haddana dowladda suudaan ma aysan caddeyn jinsiyadiisa, gacantana laguma hayo inkastoo qaraxaasi aanu wax khasaaraha geysan. waayahay marka waxaa nagu maqaalo ah in arrintu ay saameysay qaar ka mid ah ardada soomaalida ee suudaan wax ku barta, marka dad baa la xiraa la leeyahay, marka maxaa maqasha adigu? waxaa jira dhalinyaro soomaali ah oo arday ah oo wax ka baratay jaamacadaha kala duwan ee dalka suudaan oo kamid ahayd dadkii la xiray. sida ay xogta igu siiyeen uqaybsanaha warfaafinta safaaradda soomaaliya oo goordhow aan la xiriiray fido maxamuud fido, waxa uu ii sheegay in tuhun uu jiro balse aanu ka warhayn, islamarkaana xogta ay helayaan ay tahay in arday ay yihiin dhalinyaradaasi la qabtay laguna qabtay guriga uu falkaa ka dhacay maadaama ay ajaanib fara badan ay ku noolaayeen. balse waxa uu ii caddeeyey in dhowaan ay gudageli doonaan, natiijada ugu dambeysana ay usoo gudbin doonaan saxaafadda. dhalinyaradaasina ay tiradoodu gaarayso 3 kana mid a ardayda wax ka barata dalka suudaan, maadaama ay ku noolaayeen hoyga uu falka uu ka dhacayay, balse iyagu laguma qaban falkaasi, qaybna ma aysan ka ahayn sida uu ii sheegay. ardaydama waxay isla deganaayeen kooxaha looga shakisan yahay in qaraxa ay geysteen? horta guriga uu falka uu ka dhacayay qaybo kala duwan ayuu lahaa, qayb sare iyo qayb dhexe iyo qayb hoose. soomaaliduna waxay ka mid ahaayeen dadka gurigaasi qaybta dhexe ka degnaa, halka uu falka uu ka dhacay guriga qaybtiisa sare sida aan xogta ku helay. marka tuhun soo galay oo booliska ay baaritaan iyo waxyaabo lamid ay ku sameynayeen gurigaasi iyo dadkii ku noolaa aawadood, maadaama ajaaniibtu ay halkaa ku badan yihiin, falkan uu meeshaas uu ka dhacay aawadood ayaa loo qaqabtay. balse waxa uu ii sheegay uqaybsanaha warfaafinta safaaradda soomaaliyeed ee dalka suudaan fido maxamuud fidow in dhalinyaradaas aanu ilaa hadda wax caddeyn lagu haynin, balse dhowaana lasoo dayn doono maadaama ay yihiin arday wax ka barata dalka suudaan. suudaan waxaa la sheegaa in ay wax ka bartaan arday aada u fara badan oo soomaaliyeed, marka qiyaasta ama tirada ma la hayaa? marba taqriiban tirada ardayda ay ku joogaan dalka suudaan marba marka ka dambeyso way sii ziyaadaa, waxayna ku xiran tahay aqbalaada kala duwan ee sanad walba ay ka heshay dowladda soomaaliya ee dalka suudaan. tiradii ugu dambeysay ee sanad ka hor xogta aan heyno waxay gaarayaan ardayda soomaaliyeed ee ka barata dalka suudaan jaamacadeeda kala duwan hadday noqdaan caasimadii gobolada dalka suudaan, tiro ku dhow 4,000 oo arday soomaali ah oo gabdho iyo wiilal isugu jira kana imaaday qeybaha. kaasina waxa uu ahaa cabaas maxamed nuur oo ka tirsan telefishinka qaranka soomaaliya oo uuna warramayey wariyahayaga nuur xasan nuur isagoo ku sugan khartuum.